عرب ياي عرب بلاد ولا سودين عرب سيشو عبرتي مدى المنارة لسكو فرسان بلان عد لسكو صبح أنندا أنا كوشيرا أندر مارا دولة بلال دولة حرتال دومو ورقم السوغان أنا شعبا حرعايو أنا كحروين أساس صومال لنور شيء war degdeg ah hadda muqdisho ay naga soo gaaray ayaa waxa uu sheegaya in fanaanka qamar suugaani xabsiga loo taxaabay fanaanka qamar suugaani oo bariyo ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa la sheegaya in saacadii la soo dhaafay la xiray haddaba waa maxay sababta loo xiray fanaankan mase ogtaa in magaalada hargeysa lagu xiray bilaal bulshaawi oo asna ah wiil dhalinyaro oo reer muqdisho ah marka hore intaana barnaamijka u gudagelin waxaan ku xusuusinaynaa inaad fiidiyowga la garayso sidoo kale channelkeena waa yaabaysa media subscribe saarto أنندا أنا كوشيرا أندر مارا fanaanka qamar suugaani oo degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir u aaday qaab dalxiis oo lana socdo dhalinyaro saaxiibadiisa ayaa waxa la sheegay koox aan haybtooda la garanin oo ku labisan diriska ciidanka qaranka inay u yimaadeen kadibna ay u sheegeen dhalinyarada kale inay ka haraan laakiin ninkan oo kale u baahan yihiin lama oga ilaa hadda meesha uu ku xiran yahay qamar suugaani xariga alfanaan qamar suugaani ayaa la sheegaya inuu jawaab u yahay xarig sidoo kale magaalada Hargeysa lagu geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi kaas oo TikTok gacan ka ahaa dhalinta TikTok oo ay qoog yihiin madaxweynaha TikTok Bilaal Bulshaawi oo ahaa wiil reer Muqdisho kana soo jeeda degmada Kaaraan ayaa maalin ka hor xabsiga loo taxaabay magaalada Hargeysa iyadoo oo lagu eedeynayay inuu maqaayad ku taala bartamaha magaalada Hargeysa oo ku cabay koob shaah oo ku sawiran yahay calanka Soomaaliya Bilaal Bulshaawi ayaa la sheegay ilaa hadda in meel lagu xiray cidina ayna garaneyn balse kaliya la hubeen ciidanka booliisku wateen xariga qamar suugaani ayaa ku soo aadaya 24 saac ka bacdi kadib markii familkiisu ay waayeen Bilaal Bulshaawi meel ay kala xiriiraan maadaama ay ku xaggaysa deganeen sharciga xeerka maxaabiista ayaa qoraya in 24 saac ka badan aan la haykirin qof aan wax dambiya lagu hayn intaas wixii ka badan ay noqonayso in qofkaas uu afduuman yahay koox qaas ah balse midaan qamar suugaani ku dhacday ayaa sidoo kale iyaduna u eg afduub familka Bilaal Bulshaawi ayaa sheegay inay la xiriireen dawladda Soomaaliland isla markaana ay ka codsadeen in shuruud la'aan ku sii daayaan wiilkan dhalinyarada ah maadaama uu wax dambiya ka galin deegaanadooda waxa ay familku inta u sii raaciyeen hadii ay diidan yihiin in loo soo dalxiis tago inay iska soo celiyaan ama ay ku soo tarxiilaan magaalada Muqdisho balse ay qalad tahay inay xabsi ku hayaan